Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan islaamay asxaabta halkan ku xidhan meel kasta aad joogtaan. Muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay qiso cajiib ah runtiina cibro qaadasho mudan. Intaanan qisada u gudagelin, haddaad channelka ku cusubtaa subscribe baad saaraysaa. Haddii hore noola joogtayna muuqaalka leer saar kuna soo dhawow. saaxiibayaal soo dhawaada mar kale. Qisadeena waxay ka dhacday wadanka Masar, gudaha Masar weeye. Waxaana ku dhacday wiil 25 jir ah. Wiilkan wuxuu ahaa arday jaamacadda ayuu dhigan jiray. Wuxuuna ahaa muuqaalkiisa guud wiil qurux badan oo Ilaahay qurux ku manaystay. Quruxdaasuna ta kadeedka u horseedee. Wuxuu ahaa wiil caatifad badan oo firfircooni badan oo waxbarashadiisa iyo xaafadooda aan waxba uga dhaxin. waxbarashadiisana waqtiga inta uu bin jiray waqti ayuu ku qaadan jiray waxbarashadiisa, casharadiisana u ilaalin jiray. wiilka hadaba waxay ahaayeen deris gabadh xaasla ah oo la qabo. gabadhan waxay dhashay 2 caruur ah, waxaana qabay nin gabadh kale qaba. ninkii gabadhan qaba waa 2 xaasle. gabadhiisan habeen dhaaf ayuu yimin jiray. inta badan gabadha kale oo qabo waqti la qaadan jiray. gabadhan ayaa maalin maalmaha kamid ah wiilkii ayay aragtay oo muuqaalkiisu soo jiitay ayaa u yeedhay. halkaasay iska barteen. wiilkii muuqaalkiisii guud ayay damacdayba. dabcan halkaasay xiriirkoodii ka asaasmay. maalmaha saygeedu ka maqaya ay isku day jirteen xiriir ee la soo xiriirka wiilkii wayna la soo hadli jirtay. kadib halkaas ayay ku wada kulmi jireen. waliba waxay ku wada kulmi jireen guriga kiniinka hore guriga ayay ku wada kulmi jireen. kadib muddo xiriirkoodii uu soo taraba waxay gaadheen inay ku wada kulmaan shaleemada filimaanta laga daawado oo lamaana isqaba isla aadaane. halkaas ayay filimaanta ka soo wada daawan jireen. kadib markay filimaanta soo wada daawadaan kadib gurigeeda ayay ku wada kulmi gurigeedana ku soo dhaweyn jirtay wiilkii. hadaba su'aashaad is weydiinaysid waxa weeye, ninkan gabadhan qaba gabadhan waxaas oo ka daba baxday ninka oo raggan isku xareysanaysa. ninkii qabay wuxuu ahaa nin shaqeeya. waxaana ka shaqayn jiray shirkad magaalada ku taala. shirkadaas ayuu subaxii u kalahaa. inta badan habeen dhaaf ayuu ugu soo hoyin jiray gabadhiisa. habeenkuu soo hoyanayana wuxuu u iman jiray ilaa 7 fiidnimo. wuxuuna ka kici jiray guriga uu ka tegi jiray ilaa 6 iyo buuraha. aduu 6 buu ka tegi jiray. salaada hore ayuu guriga ka bixi jiray. muddo kadib wiilka xiriirka markuu ku jiray wuxuu dareemay culays soo food saaray awgi. waxbarashadii jaamacadda ayuu maadooyin kamid ah ku dhacay. hoos u dhac ka dareemay. walwal ayaa qabsaday wiilkii. wiilkan wuxuu ku fakarayay wuxuu ahaa arday qalin iyo buursita mustaqbal leh. kumana fakareen inuu qof xiriir la sameeyo. waxaas niyadiisa marnaba kumay ayni jirin. hase ahaatee gabadhaas ayaa ugu gacan haadisay. sidaas ayuu xaalkiisii warwar iyo tiiraanyo iskugu bedelay. xaaladda kakana uu ku jiro wiilkaas ayaa isagoo xaaladda ku jira ayuu isku dhalan rogoyba inuu ka shakiyo gabadh kasta oo la qabo, una ku eego il shakiya ah. gabadh kasta oo la qabo xaasa markaa wuxuu iskulu sheekayn jirayba. dabcan haddaad guursatid armaad gabadhaad guursatid markaad shaqada aadid oo guriga ka baxdid armeekaa daba baxda oo nin kale u yeedhata. wariye waxaas ayuu isugu sheekeeyey oo ku riyoonayna. arrinkii uu shakiya ka qabay ayaa ku sii weynaaday. dabcan waxaa dhacdayba shakigii iyo wuxuu la galayba inuu hablii qoyskooda uu ka shakiyaba. walaashii ayuu ka shakiyey. walaashii waxay ahayd
gabadha xilliyada dambe guriga wuxuuna ku yidhi maxaad xilligaa guriga u timaada xilliyada dambe sababtoo ah maxaad u iman weyday fiid hore guriga xagaad ku maqan tahay ayuu ku yidhi walaasha ayuu ka shekeeyey wuxuuna uga shekeeyey inay ku maqan tahay ay nin kale ay ku maqan tahay nin kale ee xumaan la soo sameynay dabcan walaasha wuxuu ku yidhi haddaan kaa waayo guriga xilli hore gurigana ogsoono uu ku yidhi inaan anugu mas-uul ka ahay hadda walaashayna way yaabtay yaab ama kaan bay ku noqotay NANI?! お前はもう死んでいる。 markay aragtay walaalkeed oo sidaa ula hadlaya dabcan kumayna ogeyn dabeecadahaas waxay ku ogeyd arday dantiisa raaca walaalkii inta badan waxay ku ogeyd nin dantiisa raaca oo nolosheeda aana soo faragashan way yaabtay dabcan shakii wuxuu la sii galayba hooyadiisii dhashay ayuu ka shakiyey markay guriga ka baxayso inuu shakiyo isdhaho hooyada xaggay aadaysa horta xaggay hooyadaa aadaysa ila kulmaysa waxaas aduu isugu shakiyey qaabkaas ayay noloshiisii sun xumi ay ku saaqday kadeed ayuu ku sudaya wuxuu isugu sheegtay waxaan jecelahay inaan guursado balse waan ka cabsanayaa haddaan guursado gabadhaan doonayo inay iga markaan ka maqanayo guriga ay nin kale ay gurigaan ku arko hadhowto dabcan waxaan odhan karnaa ninkanu cigaa shidaal waad wala taqaanaan wuxuu ahaa intaan colkii u gaadhay cigaa shidaal intaan colkii u gaadhin ayuu sii baqay dabcan ninkanna intaanu guursan ayuu isleeyahay haddaad guursatid gabadhaad guursatid armay rag kale la kulantaa armay nin kale xidhiir la yeelataa waxaasuu suu sheekeeyey dabcan shakiyaasna waxaa ku abuuray gabadhii uu xidhiirka silloonaa kaga dhexeeyey uu ku arkay istabamarinta iyo dabakabaxa ee ninkeedii ku samaysay isna wuxuu isleeyahay armay gabadhaasu siday samaysay gabadha aad guursataa kuu samaysaa marka mushaki ayuu noqday horaana loo yidhi 5 farood ma simna bilaaadankuna waa sidaas taasuunan ogsooneyn haddaba se xaaladdaa ku jira gabadhii xidhiirka uu la lahaa ee noloshiisa dhalan rugtay ayaa soo qaraacday habeenada ka mid a waxaana ku tiri su-aal ay isaga ka xanaaqisay ka waran haddaad ninkayga aad noqon lahayd oo aad markaad maqan tahay aan xidhiirkaas silloonaan aan iminka kula leeyahay aan nin kale aan la leeyahay maxaad ugu samayn lahayd isna intuu xanaaqay ayuu ku yidhi waan ku dili lahaa bilaa akhlaaqad ayaa tahay halkaas ayuu lambarkeedii habeenkaas ayaa ugu dambeysay gabadha halkaas ayuu lambarkeediina ku saaray markasta ay soo qaraacdana siida ayuu ku taaban jiray kama auna qaban jirin haddaba dhacdadaa yaree kooban xodtaa yare kooban baan ka helnay isagaana xodtaa yare kooban bannaanka soo dhigay isagaana dadka la soo wadaagay annagaan ininkay la soo wadaagay dhacdadan intaas ayaan kaga ekaana maadaama xodtaa yare kooban aan ka helnay ha yeeshee haddana maadaama qisadan ama dhacdadan waxaan u soo gudbinayaa wax kale maaha waxaan u soo bandhigay waxa weeye ina lagu cashar qaato ina lagu cibro qaato oo sababtoo ah waxaa jira gabadhaas waxay samaysay akhlaaq xumo tii ugu dambeysay wiil mustaqballe ayay u gacan haadisa xumaan inuu la sameeyo marka waxaan leeyahay wiilasha mustaqbalka leh ee waxbarashada u socda in waxbarashadiina marnaba ina liiga jeedinin hana noqonina dameerudhaan raacday dhankii loo dhaqaajiyey oo dhaqaaqday ee iska hubi qofka xidhiirka kuu soo bandhigaya ku gacan seedhna anugu uma jeeda ku dheh sida kale dumarka sidoo si leed baan odhanay hablaha waxaan leeyahay ininkuna markaad waxbarasho wadaan waxbarashadiina diiradda saara balse xidhiidh iyo jacaylan waxaa ka bax badaha ka bax ee waxbarashadiinun diiradda saara mar allaale markaad waxbarashada faraha ka qaadaan qofkii guursanaya u guurso qofkii kalow
hami kala lahow hamiyaa kala ku foonow balse waxaan leeyahay inta waxbarashada wadan ku faraagayda qisada waxa kale oo ka cibra ka qaadan karnaa waxay tahay dumarka la qabo maaha in ragooda ay ka daba baxaan markuu ninkoodu ka tago oo nin kale u yeedhaan tana la ilaaliyo inkastoo inaga nagu yartahay maadaama inuu muslim nahay haddana waxay ka dhacday wadan dadka ku nool badankooda muslimiin yihiin haddana dabinka dumarka badan baa ku dhaca markuu ninkoodu ka tago rag kale u yeedha tana la ilaaliyo dumarkan leeyahay ragga sidoo kale markaad heer leedahay iska ilaali dumarka banaanka jooga suuqyada mara inaad adoo heer leh aad gabadh kale hunguriyeysid haddaba qisadaas waxaad ka faa'iidid adna commentida ayaa nagu reebaysaa waxaan filayaa in cibra qaadashada ay aan soo tiriyay tusaalayaashaas aan ka faa'iidnay adna commentida ayaa nagu reebaysaa fikirkaagu waa noo muhiim waxba alla gabanin dadku waxbay soo kordhiyaan commentida bal qisadan sidaad u weerartid bal commentida nagu reebaysaa inta muuqaalka xiga isugu iman doonana waxaan iga tagayaa amaana Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.